oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan waana mar kale iyo barnaamijkii aad saacadahan oo kale halkan uga barateen inaanu idinka soo tabino barnaamijka habeenkan caawa waxay gala qayb qaadanaysaa Salma Maxamuud Balcade. Salma, barnaamijka ayaynu caawa si talantaaliya dadweynaha halkan uga tabin doonaa. ku soo dhaw barnaamijka. waa mahadsantahay Jamaal. barnaamijkeena wargeysyada waxay qoreen iyo caawa waxay noo soo qabtaa xubnaha ugu waaweyn ama dadweynaha aanu wax ka sii maqashino. haddii aan Salmaay 2 iyo 3 dadweynaha ka xasuusino barnaamijkeena xubnaha aan ku soo qaadan doono ayaa waxa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo xafiiskiisa ku qaabilay dhaqaatiir ka socota jaamacadda Harvard. waxa kaloon daawadayaal ku soo qaadan doonaa mar haddii dad hawl loo diro waa iska dhacdaa in ay xubno ka daba qaydiyaan. waxaa kaloon iyaduna meesha ka marnaan doonin oo ku soo qaadan doonaa maxaad ka taqaanaa shirkadda soo saarta baabuurta reer Hargeysa u yaqaanaan Dukhaanka. Salmaay, xubnahaas iyo xubno kaloo xiiso badan ayaa daawadayaasha aynu u soo gudbin doonaa intaynu ku guda jirno barnaamijkeenan iyo habeenkan caawa. Jamaal noo soo qabo xubinta ugu horeysa iyo barnaamijkeena wargeysa waxa qoraan iyo caawa. haddii aan Salmaay soo qabto xubinta ugu horeysa iyo barnaamijka wargeysada iyo habeenkan caawa ah waxa wax ka qoray wargeyska saxan sax wuxuuna ku qoray tirsigiisii maanta soo baxay oo ahaa 2017 wuxuuna ciwaan uga dhigay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo qasriga madaxtooyada ku qaabilay dhaqaatiir ka socota jaamacadda Harvard. haddaba wargeyska saxan sax oo amuurtan wax ku qoray ayaa waxa ku bilaabay sidan: madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay dhaqaatiir ka socda jaamacadda Harvard University ee dalka Mareykanka oo maalmahan ugu dambeeyay socdaal shaqo ku joogay dalka. wargeyska saxan sax oo arrintan wax ka qoray ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenku la yeeshay dhaqaatiirta Mareykanka kulano waxaan uga mahad celiyay socdaalka ay ku yimaadeen dalka Soomaaliland isagoo warbixin ka siiyay xaaladda nololeed ee uu dalkani ku sugan yahay. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici waxa uu ka codsaday dhaqaatiirtan ka socday jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka inaanay noqonin markii ugu horeysay ee dalka Soomaaliland yimaadaan balse ay si joogto ah dalka u yimaadaan si ay wax uga ogaadaan xaaladaha dhabta ah ee dalkan ka jira. wargeyska oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu sheegay doctorka hogaaminayay wafdigan dhaqaatiirta Mareykanka ah oo magaciisa la yiraahdo Dr. David Henderson inuu uga mahad celiyay madaxweyne ku-xigeenka sida uu soo dhaweeyay. waxa kale oo uu sheegay doctorkani sida ay u kala gedisan yihiin safarka ay ku yimaadeen dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safarada ay ku tageen meelo kale oo caalamka ka mid ah. waxaan u sheegay inay doonayaan inay tababar siiyaan dhaqaatiirta caafimaadka ee dhinaca dhimirka. wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo isaguna goobjoog ka ahaa kulankan ayaa sheegay inay jiraan dagaalo iyo dhibaatooyin badan oo dadkan soo maray isla markaana sababay burbur dhaqaale iyo mid maskaxeed, sidaa darteedna ay baahi weyn dadku u qabaan sidii wax looga qaban lahaa mushkiladan. dhaqaatiirtan Mareykanka ah ayaa soo maray goobo tiro badan oo ku yaala magaalada Hargeysa oo uu ka mid yahay cisbitaalka dhimarka iyo goobaha kale cilaajka ee lagu daweeyo dadka maskaxda wax ka qaba. haddii aynu daawadayaal intaasi kaga nimaadno xubinta ugu horeysa ee barnaamijkeena wargeysyada iyo habeenkan caawa, Salma bal waxaad inoo soo qabataa xubinta labaad iyo barnaamijkeena wargeysyada anaga iyo daawadayaashba adigaanu ka sugaynaa. xubinta labaad iyo barnaamijkeena wargeysyada waxay qoraan waxay noqonaysaa way iska dhacdaa marka dad hawl loo diro inay ka daba qayliyaan xubno. sidaas ayaa qoray. sidaas waxa qoray wargeyska ogaal oo arrinta ka faaloonayana waxa uu yiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Cali Jaamac ayaa golaha guurtida warbixin ka siiyay kulankii Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexmaray oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay. gudoomiye ku-xigeenka oo ka mid ahaa wafdigii Soomaaliland uga qayb galay wadahadalada ugu dambeeyay ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka loo sheego waxyaabihii ka soo baxay shirkaas. marka dadka hawl loo diro way iska dhacdaa in xubno kale ka daba qayliyaan, laakiin warbixin anigu aan hadda bixinayo waxa weeye dadka in wax loo sheego waa bulshada ee guddigii hawsha ka qayb gashay. haddii bulshada tafaasiil badan aanay ka siinin waxa khaldan ayaa laga siin doonaa.
waxaanu qabnaa ayuu yidhi in wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ee hadda ka dhacay istanbul runtii guulo badan ay uga soo hoytay somalilan. gudoomiye ku-xigeenku waxaa kale oo hadalkiisa raaciyay hadafka aynu higsanayno waxa weeye sidii aynu uga salgaari lahayn madax banaanidii aynu qaadanay 1991 qodobadan waxaanu u aragnaa inay gogol xaad u yihiin qadiyadda aynu doonayno dadku haddii ay sugayeen ictiraaf ma la sidaa sidan ictiraafka laguma helayo dagaal ayaa loo gelayaa dariiq dheerna waa loo marayaa go-aanadan aanu maanta soo saxeixnayna waa kuwii fududeynayay qadiyadda somalilan. haddana intaa kaga soo noqono xubintaas aadka u xiisaha badnayd bal jamaal xubinta saddexaad iyo barnaamijkeena wargeysada waxay qoraan aynu dib ugu noqono inoo soo qabo saddexaad iyo barnaamijkeena haddii aan soo qabto xubinta aan markan daawadayaasha u hayo waxay tahay xubin aada u xiiso badan, xubin dadweynaha hargeysa ku dhaqan ay marar badan arkaan indhahoodana marar badan ay qabtaan. xubintan waxa ay tahay maxaad ka taqaanaa shirkadda soo saarta baabuurta ay reer hargeysa u bixiyeen dukhaan. dadweyne badan ayaa ereygaasi dukhaan marka aan soo qabto xasuusanaya gawaadhidii yaryaray ee hargeysa iminka u kala qaada dadka ee meel walo ay doonayaanba geeya. haddaba amuurtaasi salmaay waxaa wax ka qoray wargeyska haatuf. bal aynu eegno wargeyska haatuf amuurtan isagoo ka falanqoon aynoo faaleeyo. xubintan waa xubin aada u xiiso badan, waana xubin anigaba iga qoslisay, daawadayaashana way ka qoslin doontaa waynu wada daawan doonaa. Tata Nano waa gaari magaalo waxaana samaysa shirkadda la yiraahdo Tata Motors waxaana lagu sameeyaa kadibna waxa lagu iibiyaa dalka Hindiya. modelkeedii ugu horeeyay baabuurta Nano waa kuwa aad u jaban oo ku cusub dunida maanta. qiimahooduna waxa uu dalka Hindiya ka joogaa ilaa 100,000 rupees lacagta dalkaasi oo u dhiganta $2,000. bilowgii wax soo saarkii shirkaddan kadib markii lagu guuleystay sameyntooda iyo qiimaha jaban sanadkii 2005 shirkadda Tata Motors waxay bilowday inay horumariso oo ay samayso gawaadhi kale oo macquula taas oo dadweynaha Hindiya ku nool badankoodu ay ka haystaan. soo bandhigidii baabuurtan loo yaqaano Nano ayaa indho gaara waxaa ku eegayay saxaafadda taasoo kaliftay in qiimo yar la siiyo. rajo badan ayaa gawaadhidan ka soo baxday markii la waday sameyntooda iyadoo la filayay in aanay wax qiimaha aanay sameyn doonin marka la dhameeyo hawshooda. sanadkii 2008 mar la qiimeeyay oo ay qiimeysay ururka Chrysler ayaa ay sheegtay in gawaadhida Nano ay ku fidi doonto suuqa baabuurta ee dalkaasi 65%. gudoomiyaha shirkadda Tata Group Ratan Tata ayaa sheegay in gawaadhidan yari ay faa'iido weyn ugu tari doonto dadka isticmaala, isagoo cadeeyay in fursadii u horeeyay ay qasaareen taasoo ay keentay in dhibaato farsamo isla markaana qoysas danyar ah ay shirkaddu u suura gelisay inay helaan gaari qiimo jaban oo qoysku arrimihiisa ku fushan karo, shidaal yar na cuni kara maadaama oo aanay hore u awoodi karin inay iibsadaan gawaadhida waaweyn. ayaa uu leeyahay ninka shirkaddan iska leh ee soo saara baabuurtan loo yaqaano Tata. si kastaba ha ahaatee gawaadhidan yaryar ee adduunka ugu qiimaha jaban ayaa si xawli ah isticmaalkooda ugu soo badanaya magaalada Hargeysa iyadoo ay dadku iibsanayaan inay ku shaqaystaan oo ay nolol maalmoodkooda kala soo baxaan, isla markaana dadka qaar ay u iibsanayaan dhinaca shidaal cunista oo aad u yar. sidoo kale dadka reer Hargeysa oo gaadiidkan yaryar aad ula dhacay ayaa markiiba u bixiyay magaca dukhaan oo ay ula jeedaan yaridiisa isla markaana qiimo jaban oo qofka ku geynaya halkii ay dani ka gasho. waxaana maalinba maalinta ka dambaysa kordhaya qiimaha lagu iibsado gawaadhidan oo iminka suuqyada baabuurta ee Hargeysa ka maraya lacag ka badan $3,000. u dhalatay dalka Kuwait ayaa cambaaraysay inuu odageedii ka xaday shandadii ay ku sidatay garabka iyadoo ka dacweysay saldhig bilis oo ku yaala wadankaasi Kuwait. xaruntaasi salmaaya ka dhex galay xubintani waa xubin aad u cajiib badan. gabadh ninkeedii iyadu intay ninkeedii shandad ka xaday ordayo xarun bilis u tagtay oo ka soo ashkataysay. waa xubin aad u cajiib badan. waa xubin laga yaabo maqalka dhagaha dadka inay ku cusub tahay horeba day loo arag. bal yaa amuurtaasi waxa qoray wargeyska Haatuf oo qaadaa dhigaya ayaynu daawan doonaa ama aynu wax ka maqli doonaa. haweeney u dhalatay dalka Kuwait ayaa si degdeg ah u tagtay xarunta biliiska oo ku taala caasimadda dalka Kuwait
taasi oo u sheegtay in shandadeedii gacanta lagala baxsaday ka hor inta aanay gaadhin aqalkeedii. sarkaal ka tirsan ciidamada bilyaska ayaa ka codsaday in ay isdejiso kadibna weydiiyey in ay aqoonsan karto tuugaasi kala baxsan shandadeedii gacanta. ayaa waxa ay haweeneydaasi ugu jawaabtay dabcan haa, waxa uu ahaa ninkaygii, waxa uu iga xaday shandadaydii kadibna wuu baxsaday. haweeneydaasi ayaa sidaa u sheegtay sarkaalkii ciidanka bilayska ee saldhigga ku yaala caasimadda Kuwait. sida laga soo xigtay wargeyska Al Watan, wargeyskan ayaa sheegay in ay ninkaasi iyo gabadhaasiba ay isweydaarsadeen hadallo kulul mar ay ka tukaamaysanayeen suuqa ganacsiga ka hor intii aanay go'aansan in uu sii dhaweeyo aqalka oo aanu kala baxsan shandadeeda gacanta. marka aan ka soo daadegay gaadhigii meel u dhow aqalkayga, ninkaygii waxa uu qabsaday shandadii kadibna gaadhigii ayaa uu kaxaystay isagoo u kacay meel aan garanayn. hase yeeshee ma uu sheegin in ay shandadayda lacagi ugu jirtay iyo in kale. haddaynu daawadayaal xubintaasi aadka u cajiibka badnayd Salmaay intaasi kaga nimaadno, dad badan ayaa laga yaabaa inaynu ka qoslinay, dad badan ayaa laga yaabaa inay la yaabeen xubintaasi. aynu intaasi kaga soo gudubno. xubintaan markan gacantayda ku hayo ayaa daawadayaal waxaa wax ka qoray wargeyska Ogaal, wuxuuna ku qoray boggiisa dunida iyo ciyaaraha. waxaanu ciwaan uga dhigay Messi oo lagu abaal marinayo mushahar kordhin markii uu madaxa xanuun ka qaaday abaalmarintii Ballon d'Orka amaba ciyaaryahanka ugu wanaagsanaa sanadkii aynu soo dhaafnay adduunka guudkeeda sida ay sheegeen. haddaba daawadayaal xubintaasi wargeyska Ogaal ayaa ka falanqoonaya. weeraryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa ku guuldaraystay sanadkan markiisii shanaad ee isku xigta inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Orka, balse waxaa lagu wadaa inuu ka sare maro ciyaaryahanka ay sida weyn u xifaaltamaan ee Cristiano Ronaldo kadib markii uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo ku kacaya 37 milyan sanadkiiba, kaas oo ka dhigaya inuu noqdo ciyaaryahanka ugu mushaharka badan adduunka. wargeyska Ogaal oo amuurtan wax ka qoray ayaa waxa uu leeyahay Messi ayaa hadda qaata mushahar ahaan 33 milyan sanadkiiba, kaas oo ka mid ah heshiis uu u saxeexay muddo laga joogo 12 bilood, balse kala bar mushaharkiisa waxa uu ku bixiyaa cashuurta dalka Spain. dhanka kalena laacibka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo oo ah shumca iftiimaya ee garoonka Bernabeu ayaa uu leeyahay wargeysku ayaa u saxeexay naadigiisa xagaagii la soo dhaafay heshiis ku kacaya 35 milyan sanadkiiba, balse Barca ayaa aaminsan in laacibkeeda lama taabtaanka ah ee Lionel Messi uu ka mushahar badnaan doono xidiga reer Portuguese ee Cristiano Ronaldo. 26 jirkan ayaa saxiixi doona heshiis cusub oo toddobaadada inagu soo aadan, kaas oo lagu kordhinayo 4 milyan sanadkiiba mushaharkiisa uu hadda ka qaato naadigaasi, ayaa wargeysku ku soo gabagabeeyay warbixintan uu ka diyaariyay ciyaaryahanka Lionel Messi. maxaad kala socotaa fanaaninta saa ka qaadi doona koobka adduunka oo ka dhixi doona dalka Brazil? waxaa dhacdadaasi wax ka qoray wargeyska Geeska Afrika isagoo aan ka dhex galay koobka adduunka ee la qabtay sanadii la soo dhaafay hore. waxaa ka heesayay fanaankii caanka ku noqday ee Keenan iyo heestiisii Waving Flag, iyo waliba fanaanada Shakira oo iyaduna ka qaadi jirtay heesteedii Waka Waka. bal waxaa la saadaalinayaa sanadkan 2014 koobka ka dhacaya wadanka Brazil cidda ka heesi doonta ma iyagiiba ku soo noqon doona mise waxa ka heesi doona fanaanin cusub. bal wargeyskan Geeska Afrika oo amuurta wax ka qoray aynu eegno cidda uu ku sheego, aynu eegno isaga aynu qaada dhigi doona ama aynu xawintaas wax kala socon doonay. waa kan wargeyska Geeska Afrika oo arintaasi ka faaloonaya. sida caadada hafuritaanka World Cup waxaa lagu soo marti qaada hal ama laba fanaan kuwooda ugu caansan waqtigaasi xilli la xasuusto furitaanka ugu dambeeyay ee World Cup sanadkii 2010 ee lagu qabtay dalka South Africa in lagu marti qaaday labada fanaan ee aan kala dhicin Kanaan Cabdi oo qaaday heestii caanka ka noqotay adduunka ee magaceedu ahaa Waving Flag, iyo fanaanada Shakira oo ku luuqaysay heestii iyaduna caanka noqotay ee Waka Waka.
haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sanadkan 2014 ee dalka Brazil lagu qaban doono koobka adduunka waxaa la soo xulay 2 fanaan oo caan ka ah adduunka kuwaas oo kala ah 2 fanaan ee Jennifer Lopez iyo Pitbull iyagoo labadaas fanaan ay si rasmi ah heeso kala duwan ka qaadi doonaan furitaanka World Cup 2014 laakiin wali lama sii shaacin magacyada heesaha ay qaadi doonaan daawadayaal intaasna waxaanu kusoo gabagabeynaa barnaamijkii jaraa'idadu waxay qoraan oo habeenkan caawa ah intaasna kaga idil barnaamijka waxaa si wada jira halkan idinka soo tabinayay Salma Maxamuud Baalcade iyo Jamaal Axmed Naasir iyo waliba kamarada iyo lightingkaas quruxda badan oo uu inoo hagaayay farsamaqaanka da'da yar leh waa Cabdiraxiin Muuse Yuusuf waa ya habayntii iyo isku dubaridkii Maxamed Ibrahim Dembeel aniga iyo Salmiba waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo kulan dabo xiisa badan